xaaji cabdi ayuu ahaa kaasi markana aan wararka Soomaalida ku soo noqdo berito oo khamiis ah kuna beegan 18 May waxa ay tahay sanad guuradii 26aad ee ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda iskeeda u dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland ay sheegeen inay ka go'een Soomaalida inteeda kale sanad kasta 18 May Soomaaliland waxa lagu qabtaa dabaaldegyo balse sanadkan waxa gabi ahaanba la joojiyay dabaaldegyadaasi iyadoo lagu bedelayo qaaraan ururin loo sameynayo dadka ku xoola beelay abaarta qorshahan ayaa ah in la ururiyo lacag ka badan 10 milyan oo dollar wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Cadaani oo shir jaraa'id ku qabtay madaxtooyada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ay u joojiyeen sanadkan dabaaldegyadii 18 May shirkaasi jaraa'id kadib ayuu u waramay wariyaha BBC Ahmed Saciid Ige mar dhow ayaan maqli doonaa wakiilka Soomaaliland dalkan UK ayaan Maxamuud oo haatan stuudiyaha ugu la sugan laakiin marka hore wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxadiid Cadaani oo arintan wariyaha BBC Ahmed Saciid uga waramay waa kan أحمد الدبالدقيدي ما نشوفين وحنو بدلي أبارة بحسن أيام سوماليلاند وعن تاريخ الولد اللارق أيام كوهب سدي أبارها صوحي سمايين ضد بدن أو حولها كمدين مديم دير وحنو كوشنا تاكلين تأبارها سانو ضدك أو عاون لهين حتى برنامج حسبانو قال لي دبالدقي أنا سمين شدني وحنو كبدلي الناس أنا ولا لها يجا حولها كمدين يوسدي أبارتن سنة دول بصوص عطا لوجا كمالها قرشونه وحي هاي إن إلى 10 كنوق إلى 12 كنوق قيس لحوليه إن محن كل هذا لقضه على الدار إن دامسك بيها وضنك مرية فرا بدله ومال والبرنامج لقى حلوان بيه بدل جلعان يشيلين إن سيره لسمايو إلى 12 سيرات لسمايو در بلادن وأتكور أنت هذا جوا تلك وردن لدير. أقل عتك كده سر بركاسي وحن مغلين العقد 10 مليون دولار أورنا سنة قربها إذا قرب شوقي يدكوا بل إيور ما بيلودين. أحمد وهوشاس وحتى بلابيا وحوي 6 مليون يبرد ومدة Soomaaliland قربية دبت بأيا محن كل هذا لقوا ورنيا هديت تجارته هي هديت هاي أرضية وأن محن كل كوجو شاب كيرة بمشتر شغالة لقيتيه ما شرتوا 6 مليون يبرد 2 مليون وحكون دقيسة دي بي ويل مليون يبردنا وحكون دقيا إمارات كعربته 10 مليون أيام نقولنا 10 مليون وحنقولنا يانون صلدقي أما قندقي محن كل برنامج كأبارها لقى بحلاين دب صورنا نقدان لكن وحنا فينا دوينها العقيوق لقوا ورنيو هذا كعربها إمارات كي قدر يوروبا العكس الصومالي أنا ليه هاي قيب سيدنا نقدر دو. أنت بسعوني مركب ololaha soo soconaya 18 May bilowgeeda dabaaldagaas maxabeekaas madaxweynuhu ka hadli doona ilaa bisha 26keeda June maalinta aynu caalanka qaadanay 1960 waxa raacsan kun volunteer oo ardayda mutadawiciina ayaa qaranka oo dhan lagu baahinaya bishaas meherad walba way marayaan guri walba way garaacayaan $1 iyo $0.5 iyo 200 kun oo shilin iyo shilinba 5 kun oo shilin ayay ururinayaan ummadda Soomaaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradaas oo calaamado ay leeyihiin ayaa sita mutadawicnimadu ka muuqato wasiir waxaan doonayay inaan ku weydiiyo kale waxa tiri waxaanu 12 kun oo qoys baad xoolaynaysan xooluhu iibinaysan marka ma aadi ka baxay geeli iyo baad lacag siinaysan waa la qorsheynaya waxa weeye qorshahan wuxuu yahay intii xooluhu soo baadeen xoolahooda ku nabad galeen lacageeyo oo ay waxay raashin iyo ku iibsadaan oo laga iibiyo kuwii xooluhu ka baxeenna xoolo maxaan ku raahdaa lagu soo daro qaybta ay noqon doonto haday geel tahay haday ari tahay wali lama qorsheyn laakiin waxa la isla qaatay inuu dadkii ay ka baxeen xooluhu in maxaan ku raahdaa 10 ilaa 12 kun dib loo xooleeyo lacagtii aad ku kharash gareey jirteen dabaaldega ciidamada iyo fantasiyaha iyo adigu aad ku tilmaantay bakhaamka iyaduna maxaa garan ku jirtaa lacagtaas sida u dhameed waxa lagu daray mashruucan kasoo kabashada abaaraha ayaa Axmed oo lagu daray waxa la yiri cid kasto dabaaldegaysana sanadkan ha isku tashato waa sanad loo gurmanayo dadka iyaga walaalaha ah abaaruhu saameeyeen wasiir Cadaani oo Axmed Saciid Hargeysa ugu waramayay ayuu ahaa waa taasidan hore idinku sheegay stuudiyo haatan waxa igula sugan ayaan Maxamuud Maxamed wakiilka Soomaaliland ee dalkan UK ayaan ku soo dhaw barnaamijka aad ay u mahadsan tahay ka soo qaybgalkaada ka waran wasiirka waa maqlaynay laakiin adinku
qabanqaabad wadaan dabaaldeg iyo howlahaasaad ku jirtaan ها waayo kala xaalad baanu nahay kowta la baajiyey waa tan ah lacagtii faraha badnayd ee dowladdu u isticmaali jirtay dabaaldega gudaha iyo dadkii oo sida inay tahay inay gudaha lacag ka ururiyaan annaka howlahan badanaa dibadda ka wadno qaaraan ka laftigeedu kama maqno oo dee waa qaaraan ururis marka isma diidayaan dabaaldegaygii iyo maxaa la yiraahdaa iyo qaaraan ururiska dadkayga abaaraha saameeyeen markaas waxaa beritoole insha allah mudaharaad weyn oo laiskugu soo baxayo conference weyn shir weyn baa isna sida isna london ku qaban doonaa waxaana sii raaca doodo goos oo arrimaha somaliland quseeya ay aqoon-yahanka reer somaliland iyo saaxiibadooda ay ka wada hadli doonaan laakiin xagga lacagta markaan fiirino iyo qarashka ku baxaya arrimahan wasiirka markuu hadlaya wuxuu yidhi ilaa 10 milyan iyo ka badan oo dollar in la ururiyaa la rabaa cid walbana waa laga ururinaya dibadda dadkii jooga wuu sheegay ardaydii iskuullada oo maaragtay ayuu sheegay xataa marka sow ma habboonayn in amarka oo dowladda intaad u dhega nuglaataan wixii la heli karaba in xaggaa lagu bixiyo haddaan laisku iman waxba lama helayo annagu isku imaanshaha iyagu baa qaaraanka ku ururinaynaa marka isma diidayaan jadwalkayga ah in laisku yimaado oo xaflad beritoole isku soo baxa iyaga kow waa laga ururinayaa ta labaad oo soo raacdana waxaa weye sabtidan waxaanu leenahay 20 bisha xaflad weyn aanu ugu talagalnay inaanu qaaraan haddaanu reer UK nahay inaanu qaaraan ka ururino sidaad la socotidna 18 May ilaa 26 June waddan walbana lacag baa lagu qoray so ama hala dabaaldego ama hala isku soo baxo lacagtii waddan walba waa la iska rabaa lacagtii UK lagu qoray UK-na waxaa lagu qoray san aanu warka ku hayno 200,000 inaan ururino muddada intaas ah talabaadna runtii waxaan iyadana aan rabaa inaan idhaahdo aad baan uga xumahay somaliland waxaa ka go'day soomaaliya ee kama go'in soomaalida oo dhan marka aad baan uga xumaaday sida aad igu soo dhaweysay oo ah dowladda iskeed isku magacowda ka go'day soomaaliya oo dhan soomaaliya oo dhan meel ay dowlad ku ahayd ma jirin marka runtii waxaa jeclaan lahaa inaad tirahdid dowladda somaliland ee lasoo noqoto xorriyaddeedii iyo isku biiriddii ay soomaaliya ku biirtay waa sidaad u dhahdiin annaguna sidaasaan u dhahnaa marka asaasaan heshiis ku ahaano waa yahay waxaa tiri maxaan ku idhaahday waa la wadayaa hadallada iyo somaliland iyo shirar badan oo ku saabsanaa socon doona ayaan 26 sano ayaa la waday arrintan meelna way u dhaqaaqi la'dahay marka ma layska wadi karaa uun ها ولا سكوضيا وانا لسكوضي كرا واي 26 سنادود Somaliland kuma qasaarin waa dal jira ciidan leh nabadgelyo leh horumar leh isdoorta maxaa la yiraahdaa socda haddii wax kale Somaliland naga baajin waxa naga baajisay dhibaatada faraha badan oo geyiga Afrika ka taagan marka isla iskama wadin waxa weeye dalnimadiisa joogteynaya marka wax la iska wado oo la baajinayo ma jiraan oo maxaa la yiraahdaa waxaad ka filanaysaa inaan qabanaan garan lahay ixtiraafaa loo baahan yahay ixtiraafku imanaya ixtiraaf kuma dhaco maxaa la yiraahdaa in yar buu ku dhacaa ixtiraafku maaha wax cirka marka soo wada dhaca insha allah iminkaba ixtiraafka noocyada kala duwan aanu haysano maanu haysan 10 sano ka hor maanu haysan 15 sano ka hor marka alxamdulillah baanu joognaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ayaan maxamed wakiilka Somaliland dalkan UK ay ahayd markana waxaa la soo gaaray waqtiyadan oo kale wararka caalamka ee BBC-da ayaan mar kale in maqashiinaa